kulanti wacan wanaagsan idil ahaantiinba daawadayaal ku soo dhawaada war wixii dalka iyo dibadda habeenkan caawa naga soo gaadho si toos ah ugala socotaan xiliyadan oo kale telefishinka madaxa bannaan ee Somaliland Space Channel oo habeenkan caawa si toos ah idinkaga imaanaya stuudiyaha labaad oo telefishinka Somaliland Space Channel ku leeyahay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal waxay idin la socodsiin doonaa habeenkan caawa warka hadduu eberali ka noqdo anigoo ah Jaamac Xuseen Jaamac qodobada ugu doorka roon habeenkan caawa warkana waxaa kamid ah madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo ayaa maanta kulan la qaatay bahda cadaalad iyo garsoorka Somaliland wasiirka wasaaradda ganacsiga Somaliland ayaa kulan la yeeshay guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka Somaliland una sheegay in la wareejin doono haamaha keedka shidaalka ee Berbera kuwaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona warka habeenkan caawa imikana ku soo dhawaada isagii oo fidsan madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo ayaa maanta kulan la qaatay bahda cadaalad iyo garsoorka Somaliland sida uu faahfaahinta warkani magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland inooga soo diray wariye Koronto madaxweynaha dalkani jamhuuriyadda Somaliland mudan Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo waxa maanta kulan dardaaran la qaatay garsoorka maxkamadda sare iyo guddiga cadaaladda Somaliland ay hogaaminayaan gudoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali Axmed wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka Xuseen Axmed Aydiid iyo xiriiryaha guud ee qaranka Somaliland Xasan Axmed Aadan kulankan oo ujeedadiisu ahayd sidii kor loogu qaadi lahaa loona dardargelin lahaa bahda garsoorka iyo cadaaladda isla markaana loo xoojin lahaa cadaaladda maadaama cadaaladdu tahay dhaxaadka qaranka iyo bulshadaba shirkaasi laga wada hadlayay muddadii uu socday laguna soo qaaday habka ugu fudud ee dadku ay cadaalad ku heli karaan iyo si hortagi lahaa cawaaqib kasta wax yeelaya cadaaladda la iskuna meel dhigi lahaa hanaanka ugu fiican ee bahda garsoorku ay dadka ugu adeegi lahaayeen iyagoo raacaya shuruucda dalka iyo daacadda waxaana halkaasi madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo warbixin ka siiyay gudoomiyaha maxkamadda sare wasiirka cadaaladda iyo garsoorka iyo xiriiryaha guud ee qaranka iyo waliba xubno ka socda guddiga cadaaladda iyo garsoorayaasha maxkamadaha iyo xubno kale madaxweynaha shirka soo xuray ayaa una bayaamiyay ujeedada kulanka madaxweynuhu sheegay inuu yahay mid ku salaysan kamada dhalinta in dalku ka sinaado cadaaladda iyo garsoorka shacbiga iyo dadkuba ku hogaamiyaan wanaag sinaan iyo horumar bulshadu mahadiso waxaana madaxweynaha kulankani ku weelinayay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse iyo wasiir dowlaha madaxtooyada mudane Maxamed Muuse Abees iyo waliba xogayaha gaarka ee madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo kulankan madaxweynuhu maanta la qaatay bahda garsoorka warkan laga soo saaray xarunta madaxtooyada ee Somaliland ayaa nuqul kamid oo soo gaaray xafiiska warqabadka ee Somaliland Space Channel waxa ku saxanaa xogayaha gaarka xafiiska saxaafadda Somaliland mudane Naasir Yuusuf Daahir Naska Cabdirasaaq xafiiska koronto Somaliland Space Channel Hargeysa wasiirka wasaaradda ganacsiga Somaliland ayaa kulan la yeeshay guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka Somaliland una sheegay in la wareejin doono haamaha keedka shidaalka ee Berbera sida uu faahfaahinta warkaasi magaalada Hargeysa inooga soo dirayo wariyahayaga Khalid Bulshaawi wasiirka wasaaradda ganacsiga Somaliland ayaa maanta kulan la yeeshay guddi hoosaadka ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka Somaliland kulankaasi oo saacada qaatay warbaahintuna dibadjoog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warfidiyaanada la hadlay xildhibaan Naasir Xaaji Cali Dheere oo kamid ah guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka Somaliland waxaanu wasaaradda ganacsiga Somaliland ku tilmaamay mid gaabis ah oo aan si toos ah u gudanin waajibaadkii loo xil saaray sidoo kalena waxa uu sheegay inay ka wada hadleen arrimaha kala xadaynta ganacsiga waxaanu yiri la kulanay wasiirka ganacsiga ee Somaliland wasiirka runtii aad baanu uga wahdanay waxyaabo fara badan oo wasaaradda khuseeya waxa ugu horeey waxaan ka wada hadalnay waxyaabaha ku saabsan kala xadaynta ganacsiga taas oo ay noo sheegeen inay haatan ku dhex jiraan xogna ururinayaan si ay u ogaadaan dad kale liisanada wholesale-ka si ay ugu ekaan lahayn dadkaas in wholesale-keedu kaliya inay ku ekaadaan dadka kale tafaariiqdana ee la siiyay liisanada retail-kana inay si gaar ah ogaadaan magacyadooda iyo tiradooda waxay noo sheegeen xogtaas in imika meel fiican marayso oo database ay ka sameeyeen isla markaana ay ku tirjaan talaabadii u soo horeysay inay ka qaadaan sidii ganacsiga loo kala xadin lahaa ee ninka wholesale-ka ugu ekaan lahaa inuu wholesale ahaado ninka retail-ka retail ugu ahaado waana qodobada runtii ka guud ahaan aan saaraynay sida tooska u muuqataan ka hadalay aan runtii ka wada hadalnay wasaaradda ganacsiga oo aan ka hadalnay in la rifay
oo dhammaan waxyaabo fara badan oo ay xaq u lahayd ka wasaarad ahaan in laga googooyey haddii ahaan lahayd export iyo import haddii ahaan lahayd taladii guud iyo qorshihii guud ee dalkan ganacsigiisa inay ka qayb qaadato waxaad moodaa in lagu soo koobay oo keliya shaqadoodii oo dhan liisan ganacsi ay bixiso oo habay yaraatee wax allaale wax ku saabsan ganacsiga xataa maxaa ugu dhow ganacsiga xoolaha dakhliga inaga soo gala iyo si loogu raadinaa marketing dhammaan inaanay shaqo ku lahayn taas waxaa markaa wax caddaatay wasaaraddaas inay tahay wasaarad runtii la rafay sidoo kale xildhibaan naasir xaaji cali dheere waxa uu sheegay in kulankaasi wasiirka ganacsiga mudane muuse qaasim uu u sheegay in cid gaara lagu wareejinayo haamaha kaydka shidaalka ee dekedda magaalada berbera balse uu ka gaabsaday wakhtiga la wareejinayo iyo cidda lagu wareejinayo waxaa beriyahan dambe iminka la hadalhayaa in lagu wareejiyo shirkado private waxaa wasiirku noo caddeeyey in arrinkaas dhab yahay waxaa kaloo ay noo caddeeyeen oo halkaa nooga muuqatay in ka wasaarad ahaan iyagu haamaha ay maamulaan oo keliya maamulka laakiin markay noqoto kharashaadii lacag aanay haba yaraatay aan shaqo ku lahayn kharashaadka iyo lacagtaana ay tahay wax 3 bilood ah oo ay maamusho wasaaradda maaliyaddu anagana waxaa noo caddaatay markii aan la kulanay mar hore maareeyaha haamaha muxuntii in dakhli culus oo qarankani leeyahay oo laga jaro halkii litir ee shidaal ee IBM-ba in u soo xarooto haamaha magaalada Berbera ku yaala wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland mudane Muuse Qaasim oo markii uu kulankaasi dhamaaday ay warbaahintu isku dayday inay wax ka weydiiso arrimahaasi ayaa ka gaabsaday sheegayna inaanu ka hadlayn arrimahaasi waxa soo badanaya wareejinta hantida dawladda ee lagu wareejinayo shakhsiyaad gaar ah iyadoo intii ay talada dalka haysay xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Silaanyo ay sii dabar go'ayaan hantidii dawladeed ay xukuumaddu maamuleysay oo badidooda lagu wareejiyay shakhsiyaad gaar ah waxaana ay waqti yar oo kooban u dhaxeeyeen wareejimihii kala duwanaa ee dantii guud ay xukuumaddu maamuleysay oo haatan gabaabsi ah iyadoo ay dadweynuhu isweydiinayaan in hantida iyo danaha guud ee xukuumaddu maamulayso inta hadhay lagu wareejin doono shakhsiyaad gaar ah iyo in kale ku wareejinta danaha guud ee shakhsiyaadka gaarka ah ee xukuumadda oo muddooyinkii u dambeeyay isa soo taraya ayaa ku soo beegmaya xilli ay muddadii golaha guurta Soomaaliland u kordhiyeen xukuumadda madaxweyne Silaanyo ay ka harsan yihiin muddo aan badnayn waxaana xusid mudan in waqtigii madaxweyne Silaanyo iyo xisbiga kulmiye ay mucaaridka ahaayeen ay aad uga dhiidhii jireen boobka iyo lunsiga hantida ummadda Khalid Bulshaawi Space Channel Hargeysa wararka habeenkan caawaan idinka hayna dibaddana waxa kamid ah daawadayaal waxa maalintii labaad hoos u dhac ku yimid saamiyada suuqyada waaweyn ee dalkaasi Shiinaha suuqyada saamiyada ee Shiinaha ayaa maalintii labaad hoos u dhacay iyadoo walac xoogan laga qabo dhaqaalaha gaabiska ku socda ee dalkaas Shanghai oo ah suuqa saamiyada ugu weyn Shiinaha ayaa khasaaray 10.6 halka Isniintii uu khasaaray 8.5 waxa uu hoos u dhici ugu xumaa ay saameysay suuqyada Shiinaha tan iyo sanadkii 2007 waxa uu saameeyay suuqyada Mareykanka iyo Yurub hoos u dhacan ayaa sidoo kale saameeyay suuqyada ugu waaweyn Japan ee Nikkei Index waxa uu khasaaray 4% kadib sanado uu si xawli ah u kabcay dhaqaalaha Shiinaha ayaa haatan waxa uu bilaabay in uu yaraado korniinkiisu arrintaas ayaa walwal ku dhalisay maalgashiyaasha ka tirsan dalabaadka Shiinaha oo ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha weyn caalamka qaraxyo isxigxigay ayaa maanta ka dhacay magaalo kamid ah dalka Afghanistan isagoo oo geystay dhaawac iyo dhimasho qaraxyo isxigiga oo ka dhacay goob lagu iibiyo gaaska cunnada lagu korsado oo ku taale heerta galbeed ee Afghanistan ayaa waxa ku dhintay 12 qof 10 kamid ah ay ahaayeen caruur yar yar sida ay sheegayaan howlwadeenada caafimaadka afayeen u hadlay isbitaalka guud ee magaalada Heerti ayaa sheegay in 18 qof oo ku dhaawacmeen qarax kaas oo laga dareemayay magaaladaas oo ah tani saddexaad ee ugu weyn Afghanistan dadka dhintay ayaa ku noolaa xero barakacayaal ay gan yihiin oo deris la ahayd goobta uu qaraxu ka dhacay qaar kamid ah dadka dhaawacmay ayaa loo qaaday dalka Iran si halka loogu daaweeyo magaalada Heerti ayaa ku taala meel u dhow magaalada Heerti ayaa ku taala xuduudaha ay wadaagaan dalka Afghanistan iyo Iran
intaasi waxaa ku dhan daawadayaal war wixii dalka iyo dibaddaba naga soo gaadhay oo habeenkan caawa si toos ah idinkula socodsiinayna stuudiyaha labaad oo telefishinka Somaliland Space Channel uu ku leeyahay magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal warka waxa idinla socodsiinayay anigoo ah Jaamac Xuseen Jaamac Dude intaanu ku kulmi doono warkan warka xiga idil ahaantiinba daawadayaal waxa idinkaga tagaynaa ismaqal kulan aragti dambo xiisale wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh